السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالي isku soo noqod wanaagsan waa walaashii maanta qaanad iyo mar kaleeto waxaan rajaynaya idinku caafimaad qabin inaan dib kugu soo noqonay asxaabi anagoo ku jirna sheeko falanqayn iyo adduunyo ku jirna waxaa naga soo dhexgalay arrin qabiil baa naga soo dhex gashay marka naga raalli ahaada mawduucan anagoo iska baashaalayno ciyaalka xaafadda iyo iska baashaalayno lamaanahaaga wac iyo qof walba ra'yigiisa ra'yi isweydaaris anagoo ku jirna waa bahal qabiila dhac nagala soo gala inkastoo qalad loo fahmay wax walba qalad bay Soomaalidu moogtahay dad baa qalad iskaga fahmay macnaha maandeeqa adigaba qabiilaa ka hadashaa adigaba qabiilaa ku wado walaani qabiil ima wado aniga dhiiga ay wado markaan ku dhahay dhiiga ay wadana ma ahan qabiilka yani adigoo Soomaalinimo kugu weyn tahay oo wadankan qurbaha oo qofka Soomaaliga ah qofka kale ka jeceshahay markii qofkaagi oo dhiig lagu riixo dee baasho dhiigu biyo ma ahan ilma adeerayaal qof dhiigiisa uu biyo yahay ma jiro waxa waaye iyada oo Soomaali la wada yahay oo laakiin aniga qof ilaa kuma darnaade anigoo qabiilka si kasta isku nacbnaa xataa isdilna xataa aniga qof ajaaniba marnaba oogama helinayo qof Soomaaliya oo igu dhiiga oo igu diina oo ilaa kuma darnaade qof ajaaniba oogama helinayo laakiin markaan arko qofkaygiyo la riixayo xoogaa baasha dhiigu biyo maan ilma adeer waxa laga yaabaa wiilkaas inuusan aqoon ii lahayn laakiin halkaasaan ka tirsadaa Nasri waa nin ina adeerkaya يوم من الأيام بعد وبعد أنت ويحسب سنة أصلا أنا أو حساب سنة أقول كلا حلقة بين الناس كلها هين ماشي سو يقول حساب تمايا هذه هي لنا نقطة هذه قصل نقطة هذه قاران نقطة أو حساب سنة أنا كانوا أي حساب سيء مركا هل كسبال الله يسكسو سلامة لكن لايف لسكم يقانو ضد إيش يقانو منهن مركا عيارة هوب كديجا أنا قبيل ريارة قبيل مية مدة كلا أنا قبيل كي جدت كي قف كستو حمر كي ماذا وايو قبيلاني وايو أنا حمر عن كل شيء كوكاري كوبرباري ilaa kuma darnaadee dadka qof kastoo xamar ka soo jeeda wallahi dadka kale waa ka jeclahay ilma adeerkay kuwa dhalay xataa waan ka jeclahay aniga waxa waaye dadka reer xamar aniga waa dadkayga waayo ayagaan meeshaasaan ku falay ayagaa isfahmayna ma fahantay marka qabiil kasta oo aniga qofkii meeshaas aan iskula soo kornay aa qofkaygiya marka iyo qofkii aan isnaqaano marka anigu haddaad intaas aad ka xumaateena iga raali naqda raali gelin baan ka bixinaya anigu qabiil gooniyana ma abaarin dee qof walba ra'yigiisu soo bixsanayay marka intaasaan ku ekeenayna ilaa iyo wax damba soo cusboonaan doonaan halkaasaan ku hakayno noo wada sheekadeena iyo shaaxayna marka haddaba hadda nagu cusubtaa fadlan subscribe taa naga hilmaamin laagtii sheerkana video noo soo siisaa adigana firiya ku tahay maandeeqna dhiirigelin ayay u tahay intaas ayaan oga baxaynaa wixii kaleeto waxaan bilaabanaynaa qaraaxadayna marka wac lamaanahay inkastoo dadka qalad ay u wada fahmeen maana hadalka waa mirgow kalaba meeshii loo jira ayuu aadaa ma fahantay marka dadka qaar waxay u maleeyaan wac saaxiibtaa qadka ugu jir maanta oo 24 saac qadka ugu jir ama FaceTime ka wac maanta oo ha ka bixin ama ninkaaga maanta qaal taas control kaas la dhaha control waayo marta marka qofka qadka ugu jirtid oo ilaa kuma darnaaday waa inaad control sidoo kaleeto inkastoo laakiin aan been ku sheegay aniga xaajiga 24 saac waa iswacnaa been ku sheegay aniga waxa waaye uma aqaan control ma garanayo waxa waaye because aniga asaga qofkayga asaga wax walba iyaha saaxiib asaga iyaha walaal asaga iyaha wax walba adduunka ku joogan asaga iyaha aniga saas aaminsanahay waxa waaye control uma arko laakiin haddii si loo fiiriyo way noqon kartaa control marka aniga ma dhahayo 24 saac qadka ugu jir war waxaan leeyahay subaxii markaa soo kacdid qofkaagii aad lamaanaha nolosha la qaybsanaysay xaaladiisa warayso marka habeenkaas yaxanaysidna sidoo kaleeto laakiin yaan la iska warhayin dada iska warheynin anigu ma garanayo say ku nool yihiin ilaah kuma darnaadeen kulleyba aniga nolosha uma qof aan isku fiicannahay oo lamaanahayga oo aan jeclahay inaan subax markaan soo kaco ka wardooni waayo qof waxa ugu horeeya aan qabana ka wardooni waayo habeenkiina qofka ugu dambeeya aan la hadlayo aan noqon waayo kuwa waxaan arkaa dhahay mashquul baan nahay 24 saacadood ma qofkaaga mashquul 5 daqiiqo ilaa maanta aniga qadka ugu jiro kuma dhihin magta waxaan ku dhahaa xabiibi seeta ama xabiibti seeta dhahan ku yiri kuma dhihin aniga 24 saac qadka ugu jiro FaceTime ugu jiro kuma dhihin habeenkii maanta qadka ugu jiro kuma dhihin laakiin in la iska warhayo xaaladda update WhatsApp fi caadi iska dhig amal marka hadda intaas marka ra'yiga waa lagu kala gedisanaa dad badana marka mawduuc kasta aan israahda maanta gabdhaha ku hormar wiilasha u dambeynaysaa gabdhihii wax ma hubsanayaan seeftayba galka kala baxayaan war aniga haygu soo shumay inaan runta inii sheegaya waxa waaye aniga runtan inii sheegaya waxa waaye waxa kale dhan aan meesha ku haysan hal xaba kama jiro commentayaashan fiiriya ilaah baan kugu dhaashay fiiriya commentiga ugu horeeya inii akrinaya gabadhan waxay tiri naagaha ninka ku qafiifay ayaa soo batay ayaantan naa ilmihiina ilaashada faarax maxaa idinka galay yahoo maxay tahay naagaha nimanka ku qafiifay ilmaha horta yaa dhalay yaa ilmaha kaa dhalay gabaray ilmaha maanaa kaa dhalay bal adaa ku weydiinayaa naagaha nimanka ku qafiifay adduunkan waaba nin iyo naag
أدون كان أركيسيد واحد كلام كو أرتادي wax kale ma ku aragtaadi nin iyo naag waay xaawiya aadana la soo abuuray markii aadan ilaahay uu soo abuuray si lamaana loogu helo oo ilaah kuma darada lamaana nolosha la qabso loogu helo feertiisa laga abuuray xaawo adduunka waa xaawiya aadan wax kale ku dhaxay ma aragnay adduunka baa ku salaysan walaala nin iyo naag adiguna nin baa ka daba ordaysaa ninkana naag buu ka daba ordayaa marka hadalkaas waa dumarka intay ayagoo cuntada cunaa ku dhahaya laba bere cunna ma cunin hal xaba kama jiro nin haddaada ku waalan maxaa waxa u nooshaaba waa nin wax kale uma noolid haddaad hadda lagu qabinoo nin aada hoosta oga jirin nin ayaad raadinaysaa oo meelaha ka dadayaysaa waxba kama jira adduunkaba waa nin walaalo nin iyo naag leba adduun ku salaysan yahay maxaa haddaan lagu qafiifaya lagu qafiila maadaan kugu qafiifi lahaa anigu ma lesbian baan ah ma yaa lagu qafiifi lahaa ninka waa lagu qafiifayaa nin aan ku qafiifayn wuxuu iga soo raadinaani ninka waa ku qafiifa maahane waa ku dhagaa welibana waa ceemaana ninkayga waa ku dhagaa waana ku qafiifaa maxaa inaan ku qafiifo u gaarta maxaa dhacay ma lagu qafiifi kale ragga dhan ayaaban kala soo dhex baxee maxaa ugu qafiifi waayey ii sheeg haddaadan ku qafiifan maxaa u ag fadhisaanaa hadalkaas dib iskugu noqdo ninaa lagu qafiifay adduunka nin inaagay ku saabsan tahay taas halkaasaan oga daaya haddaada nin ilmaha maama juniyaa kaa dhalay maxaa kasoo doontay ninka dhanoo ilmaha kaa dhalay soo ma aha nin maanaa ilmaha kaa dhalay halkaas taas oga baxo midda waxay tiri qofkan kale wuxuu yiri walla ilmahayga ii muhiimsan faarax hoostaada haddaa oga jirto kuma fadhinayo oo adiga faarax ma waxaa hoosta ugu fadhisaa inaad ilaah kuma darnaaday inuu kuu fadhiyo war meesha inuu kuu fadhiyo lagama hadlayo hoosta ka galna kuma dhihin aniga ilaah kuma darnaaday maxaa qol kale ku seexinaya mideeda kale ilmahayga ii muhiimsan ilmaha hadeer baa imaaday marka horeeto maxaa u dhig weys contract ma la soo gashay ninka waryaa ilmaha haddaan dhalo aniga ilma bisaan kaa rabaa maa tiri allo yaa ku agaada adigoo kaleeto dadka geeraarada soo tiri jiraa ka mid tahay waa ku jeclahayay la-aantaa ma noolaan karay waa waray marka horeeto ma ilmaha soo raadsata marka hore ninka maxaa usoo daba kacday ilaa marka horeeto ilmaha maad horeynin ninkaa horeeye maxaa ninka usoo raacday soo ninka inaad nolol la qaybsatid oo bahalka loo jaleedo dee walaala ayaantan adduunku waaba casriyoobo haddaa ilmo kaliya rabtiin tala yara inay hayaa hindi intaad tagtiin ama turkiga tagtiin ama america haddaad joogtiinbo waxaa jirto ilmihii horena dhag waa gadanaysaa waa isku abuure dhal ilma haddaad rabtiin areyaan ilmaha ii muhiimsan ilmaha ninkii kaa dhalayaa ka muhiimsan kii ilmaha kaa dhalay aa ka muhiimsan wiilow taa ilmaha ka dhashayaa ka muhiimsan ilmaha nimana idinku mantal ka dhigteen oo banaanka ah ka seexateen oo ilaah kuma darnaadeen ninkan wuxuu soo raadsaday duugaal uu soo raadsaday bustaha dhaxan kama celinayso adaa dhaxanta ka celinaysid uu soo raadsaday markaas qolka kale kaja ilmahayga ii muhiimsan ilmaha hadduu ku muhiimsan yahay marka hore ilmaha maxaa usoo kow contractiga maxaa la soo saxiixan weysay hadda ogolow okay gabadhaas hadda waxaan ogahay 100% maanta waxaan ogahay haddii maanta uu yiraahdo ninkan uu naag uu keeno uu naag uu guursado inay maseerayso oo xanaaqayso maryaha tooranayso okay ilmaha ku muhiimsane waa naagaas waa la yaabay waxay ku leeyihiin nin maadan laga galaa ninka maxaa iga galay ilmahayga ii muhiimsan ilmaha hadduu ku muhiimsan ilmahaga waa haysataa waana lagugu biilaa lagu yiriye ninkan u ogolow ilaahay afar u baneeyay inuu mid kale hoosta uga jirto uu guursado u ogolow car u ogolow uma ogolid adigana fiirsanay ma ogashay car xataa aniga hadii lagu daro aniga uma ogolid ninkayga naag kale inuu guursado laakiin banaanka ka seexma gudaha qol kale kama galay ilmahayga ani ninkayga iiga muhiimsan wax xarfin sheega ninay ku waalatay ninka hadaada ku waalan guriga barta ma joogtid maxaa inta kasoo doonta inta nina joogay ilmahana markaa ninka guursaday kabacdi oon soo raxayso soo jeclaanay kabacdi yaa jacaylkii ka dhaxdhashay ilmaha waxaa laga yaabaa inaad ma dhashin inaad qorsheynayba ma fahamtay areya ilmaha ninka ii muhiimsan ilmaha ii muhiimsan marka hore intaa baxdid ninka markuu naag kaa guursado markaas ereygaas la imo waxaad tiraahdaa ilmaha ii muhiimsan ilmahayga iska korsanaa dheh car dheh okay taas halkaas uga goymina waxay tiri ani midda gabadhaana ugu fiican inkastoo magaceeda soo qori ani haddaaba guuri ani maya tan waa mid kale waxay tiri ani haddaaba guuri rabaayay tiri ka sheekee shaqana waa bilaabi rabaa ani haddaaba guuri rabaayay tiri waaba fiicnay marka hore fiicneedba waxay la taagan tahay haddaaba guuri rabaa shaqo cusubna waan bilaabay ama single baan ahay ayaanba soo dhegsan rabaa anoo la iqabo see ku yeelay qawida weyn see ku yeel macnaha waxay tiri aniga haddaaba guuri rabaayo tiri shaqaan bilaabi rabaa singala ahayaan soo dhegsan rabaa anigoo la iqabaa guurkaaba wax weyn nooga dhigtay waa la qabaa waa la qaraabata miyaa tan aniga tan wax kale ma dhahayo idinku wax kale ma u haysiin jawaab kale ma u haysiin waa la qabaa waa la qaraabataa jawaaba ahayn miyaad u haysin anigu taas jawaab uma hayo dadka la qabo qaraabta anigu jawaab uma hayo hadalkaas
وهذا المحي هذا الجواب قال كما أنصر ما يدحي باش يقول سقر يعني أنت اسكو في يعني باش مركب حواي تاس ولا قبا ولا قرابة هلك صار وقبحي الله كسو هذه ولا له قفل قبا ده هاي أم سنجل أنا وحنو أركا قرابة شنو أركا مركا الله wax ku deeqa Allah ku siiyo intaasan ka baxay baabkaaga naanin baa idinka cararaye camal yeesha oo ilaahay caabuda adduunka waa laga tagayaa xisaabiya naftiina ilaahay inaan ka baqnaaba ninka usoo guursanaba ma fahantay oo ilaahay aan oga baqno cibaadadii lagu sheegayo waaba kanaaba ninkaaga inaan raalli u ahaatan gabadha laguma dhibin waxaa la yidhi ilaahay caabud salaadaada tuko ninkaagana adeec jannada albaabada kabaha lagaagama siibayo marka waaba cibaadadii iyo socotaaba iridda iga soo gashay cibaado kale ma haystaani ilaahay markaan caabudo salaada tukado soomo cibaadadii la yiri jannada ku geli lahayd waaba tanaay ma cibaado kale ay dhimanbo cibaadada lagu sheegay gabar ay raadinaysa banaanka ka raadinaysa ama guriga ka raadinaysid waa kana cibaadada saanaaba wadaad ku taamiya kulay dabcan gabar wadaada oo ogtaa waxay tiri cibaadadii waa cibaadaysta taagan tahay kulaybo abaay cibaadadan aad nin uu ku qabana cibaadada raadinaysid ninkaaga hoostiisa ku jirtaaye ilaa shay qolka kale ha ka seexanine baahidiisii wuxuu u baahan yahay ninkaaga bustaha hoosta kala gal ma fahamtay jacaylka adduunkana mandeeq aa ku baraysee qolka iisoo gal adoo kaleta dadka loo baahiya waaye maxaa kuu soo haray haddaadan nin haysanina abaay cibaadada way kaa maqan tahe ilaahay mid qeyr qabe cirkaa kaaga soo tuuro yaa mago ani keyga lahay ugu imaanin ma fahamtay keyga ani igama badna abaay macanta ma fahamtay mid haddaada qabin dhac adiga le waxaa waaye taas halkaasaa uga baxay kaftankaas midkan waxay tiri 7 sano la iqabay tiri mana la seexan caruurteyda aan la seexdaa ayagaa iga naxariis badan nin Soomaaliya hadduu rabo bari mid kale raacaya barabaleenka ku haysta taas waxa waayaba barabaleenka 17 sano waaba ku dul qaatayba 17 sano ma caruurtada la seexanaysi ma 17 sano ku dhiman caruurtada la seexanaysi waaba dul qaatayba hadduu wili kula joogo waxaan dhihi lahaa walaala dulqaadkiya kaa batay 17 sano naag meesha qolka kale kaa seexanayso caruurta qolka seexanaysa naag kuma noqotay iska fur gabar baariyada ilaahay ha ku siiyo ani gabdhahayga 10 sano ka bacda ani gabdhahayga soo doona ana ku siinay gabdhaha maandiqay soo tababarta anaa ku waayo ma fahantay taasna kaas uga baxa waxaa waay kulaha ayaga naxariis ka hela waa run caruurta naxariisaa ka helaysaa laakiin caruurta naxariisiisa odaga naxariisiisa ka fiican ka horeysa naxariisba naxariisa ka horeysa markaad odagaaga u naxariisatay oo aad jacayl wada qaadateen oo nolol degan wada qaadateen kabacdi caruurta timaaday naxariisaada adiga aada ka helina waxa waaye ma naxariis maba aad arkaysid dee haddii naag caraysan oo gafuurka taagayso ilmo naxariista ilmihiina buuq baa ku disha adigoo kale yaa ogaada islaamahan oo kaleeto waa islaamaha ilaah kuma dar ilaah yaa ogaada waxaa arkaysaa qofku dhahaya aniga ilmahayga saas ilmahooda haddaa aragtid iskuullada waa ku bahdilan yihiin filtriibka meelaha markii laga geenaya ma u raacaan ilaah kuma darnaade meelaha cayaarta ma geeyaan 4 saac telefoon baa dhegta ugu jira heblaayay xamanaysaa kursi hebel baa u yaala daah bay bedelaysaa islaamahan oo kale waa ku aqaana ma waxaa u malaynaysaa haddaan ogahay maanta caruurta ii muhiimsan dadka dhahaya inay daacad ka tahay oo caruurta muhiim ay u tahay haddaan ogaan lahaa maanta waa iska aamusi lahaa laakiin waxaan ogahay 95% islaamaha ku haya caruurta ii muhiimsan ee nimankiina dayacay nimankiina inay naaga la guursadaan ma u ogola war qofkan ma qabaan buu ku yahay qof banaanka ka seexatay ninkan nolol qof la qaatay sariirta wuxuu soo gatay adduunka xataa fiiri sariir 2 nafar la soo gaday si ah sariirta ila hal xaba in ma deeqa moogta adduunka 2 nafar waxa loo soo galay in labada qof ay isku la seexato marka ninaad abay banaanka ka seexatay naag inuu guursadana uma ogolid fiiriya bal qalka sameynaysa naag inuu guursadana uma ogolid adigoo kalena marka waa dadka caruurta dayacay oo ilmaha dayacay waa naqaanaa ani dumarka waxaa arkaysaa dumarku dhahay ilmaheeda dadka waa ka bahdilan yihiin iskuulku waa ku bahdilan yihiin ilaa kuma dara financial waa u bahdilan yihiin lacagta la siiyo biilka loo siiyo ayuutay kula jirtaa maanta oo qabaqabeena ku jirtaa wixii ceyrta la siiyo sidoo kale qabaqabeesa ku jirtaa dahab ay naag ugu fatay intay dahabka ayada soo gado oo dahabka ay soo gado ee waxa ku leedahay anaa nin rageed hantay ninkayga ii soo gado waa been naaga badan arkay ilmaheeda meel kasta mar wacan cayaar ma geystaan ma ilmaha waa ka liitaan marka ilmahaas waxaan dhihi lahaa walaalay ilmana waxba kuma ogidin at least bal hadda xaajigan iyo ka cararine hadhowtina waxaa la leeyahay muxuu furinka u bartay muxuu ilaah kuma darnaaday dumarka maxaa nimankan maxay tahay naaga dee nimankan walaal maanta nimana digsiga karka waxaa ka keenay nimankan naaga kala raadsadaan oo ilaah kuma darnaaday ilmaha in ku dayacaan dee idinkaa isku keenteen waxa waa qom walba ayaga is dulmiyaan ilaahay qofna ma dulmin ma fahantay idinkaa is dulmiseen walaalo nimana banaanka intaa
halkaa ka seexateen intaad dhehaysiin ariyaa aniga maxaa iga koosay ninkaa iimaysan xabadna kama jiro ilmana waxba kama ogidiine naa nimankiina cishta haddii kaleetana waxa waaye qaylada iyo cabaadka daaya waana lasoo far naago hadhow markii lasoo faray meesha intay soo faraysa waxay leedahay biriq baa i qabay marka horena hoostay ku haysat marka waxaa waaye walaalayaalow arrintaas marka arrinta waa la kala baxay midaan waxay tiri ma ninkaan dhalay tiri mase cunugaygaan ma ninkaan dhalay tiri mase cunugaa dhalay naag waalan cunugaa ii muhiimsan ninka maan dhalay mise cunugaa dhalay ani ma fahmin taas ninka maan dhalay mise cunugaa dhalay ma garanayo ani qofkan soomaaligii muuqaalad u qoray mise anaa qalad u akhriya I don't know ka gudub naagaha ninka ku qafiifa tan waa soo wada marnay I don't know waxa yeelaya qeyr dheer yeelaya mise waa bahalkaasa yeelaya microfonka igu dulqaad marka waxay tiri wala wuxuu dhahay naaga waxay tiri naagaha nimanka ku qafiifay ha ilaahay ha u saqiro ilmaha waa muhiim koowaad naagaha nimanka ku qafiifay ilaahay nimanka qusada niman waa haysanaa laakiin nimanka sida ku qafiifay horta qafiif maxay u taqaaniin qafiif dadka waalan oo waxa waqaana qashinka aruuriyaan waqaana laakiin nimanka laga hadlayo walaal nolosha ku saabsan nolosha ku dhisan deen laan nolol maahan naag la'aana nolol maahan adduunka yaa isku dhisan horaa nooga soo hadlay hay wareerin walaal nimanka ku qafiifteen dee haddaad ku qafiifan walaal maa guri habartaa joogta maxaa soo doonta ishik maxaa soo doonta gabar umala oo caado qabta caado ka socoto nin hal sariir mala seexan kartaa oo maxaa diiday maxaa haddii laysla seexdamaa waa kana casr jaahiligii oo socda caado qabta maxaa caado hadda qabtay ani ninkan asaga u dhashay maama jiniyaha ma u dhashay darbi ma u dhashay war waaba loo baahan yahay naxariista ku jiro fiiriya cunuga adiga aad dhashay oo aad qof kale kuu soo koriyay maalinta u dhashay lagaa qaaday iyo cunugii aad xanuunkiisa la joogtay ilaah kuma daran adiga soo korisay gacanta ku soo korisay cuntada siisay oo la koritay oo la rafaaday iyo cunugaas isku jacayl ma noqonayo حتى ولا لها فيري ولا لها إسلا سكري ولا لها كلا كري ولا لها إسلا كري إسكا جعل بدن سوت محيطة وحواي إسكتور وانشا وحبيك أنت نين كان ممكن نبكي كلا قيب صدا أو مش كلا قيب صدا أو عنق كلا قيب صدا أو إلهكم من المية كلها هي أو نبكي أمريس كلا أركو حتى وحلقة بينو كون حريستو لكن قولك كلا دا إسكا جشيد حنونك كوها يا موجا واي أمول واودا نخنا نيجا أمول واصودا مري حنونك دمرك كل جوان نجارن لنا دي جاس كلي أيضا إيه تبدر هذا والنجراع إلهكم من درنا حنونك من دعر هذا ولا صعنا إلا قف بالآذان ونولا كصباحي مركو حواي نبكي كلا قيب صدا dhabarku ku xanuun dhabarka ku riixo mindhicirka markuu ku riixo ku masaajeeyo ilaa kuma darnaadee ku qabeeyo ilaa kuma dar war jacaylka wax ka barta waxba kama taqaanin xay tahay ma la seexan karaa war waxaas waxba kama jiraan qolka kale markaa seexanaysa yaa ku og hadda waxa leedahay ninka gafuurka taaga subax markay soo kacday xalo dhan soo jeeday xalo dhan uu xanuunahay uurku baalamaya qofkan xalo waa hurdaaye laakiin sariirta markaa la jiftay xabiib wax xanuunsanahay kan yeel waru ka haya haduu dhabar ku xanuunayo haduu musqush u baahan tahay hadaa wax u baahan tahay hadii cunuga laga soo qabanayo hadaa misalan qalan tahay waa nin ku haya uu ku naxariisanayo waayo dhibkaagu warka haya laakiin markaa qolka kala gashid yaa ku og jinniyo ma ku og orad marka waa jiniya gee dhibkan oo geeya nimanka ayaga in ka dhalana hal la qaybsada dhibkiina gooniha iskaga dhiginina waxa waa jaceylkana waa la isla qaybsadaa dhibkana waa la isla qaybsadaa dheeftana waa la isla qaybsadaa caadi iska dhiga waxay tiri waa runteed gabadhan waxay tiri waa runteed kaligaa maa dhalay ma dhafarka hale keligay maxaa iskugu koobaa waa run dhafarka keligaa maxaa iskugu koobeen ma keligaa ayaa dhalay waa runtaa waxay tiri wale maalintan qol samaystay ayaama horumar gaaray tiri tana horumarkaas abay macanta waa arkaynaa horumarka maxaa horumar qol kale lagu sameynayo lagu gaaray anigu ma arkin waxaa lay middaa ma garanayo hal midaa marka ugu dhaqan fiicnayd waxay tiri aniga markaan qol kala seexanayo maan guriga hooyadii joogo exactly afkaaga caana lagu qabay magaceeda ma aqaan hataa waxaan fahmaya haddaa sheegteen marka adiga qolka kala seexanaysid guri hooyada maa joogtid maxaa halkaa kasoo raadis haddaada la seexanayn taasna waa barabaganda kaleeta marka nimanka inkastoo ayaga intooda badan waxa waaye arrintan waa taageerayeen hal mid ay kasoo horjeesteen ayaguna wiila wuxuu soo qoray caadiya barayfada si barayfada waaye kan wuxuu dhahay below kula kacday baan below kula kacday below kula kacday below kuu seexatay baan oran lahaa kulahaa hadday intay dhowr goor isoo wacdo waa seexanayaa iyo masoo kacday igula meeraysato warwicidda badan waa lagu kala tagaa
xarfaankaasna waxaan dhihi lahaa abow gabar islaamid ha soo lugoynina gurigaaga joog inkastoo aan barayfad ugu diray gurigiisa ha iska joogo waxaa waaye kulaha belo kugu dhacay maxaad usoo lugoynaysaa haddaada lagula meeraysan waraa jiifkaagaa la kontaroolaya dharkaagaa la kontaroolaya hadalkaagaa la kontaroolaya wicitaankaagaa la kontaroolaya haddaada kontarool rabin guri gabar islaamid ha soo lugoynina guri habartaa iska joog walaala hooyadaa kuma kontarooleyse hooyadaa gurigaaga joog ma fahamte gabdhaha islaamid ha soo lugoynin ma fahamte inkastoo wiilasha badan dhan arrintan igu raaceen laakiin halkaas wiilaan arkay wax kasoo soo horjeesaday ma fahamtay inkastoo dadka lagu kala ra'yi badnaa asaga uu iska kaftan ay ka tahay marka oo caadiyan u aqaanaa wiil walaalkay aqaana waaye laakiin realitiga dad aaminsanaa jiro belo kula dhacda no number one dadka taleefonka garaaca waaye anaa idinkaga aqaan ma fahamtay marka waxaa waaye asxaabay caada iska dhiga hala jiilgareeyo haddiina nin ku qafiifin lahayn adduunkana waa nin iyo naag ninkana naaguu ku qafiifaa naagtana ninay ku qafiiftaa dee waa iska caadi laakiin gabdhaha hal midaan u sheegayaa dulmiga dhaafa waxaad diidantihiin inaad qolka la seexatiin qolka kale 17 sana laydin qabaa qolka kale aad jiiftiin naag in la guursadana ma rabtiin idinkoo kaleeto welibana sariirta adigu ku jiifan weysay aniga waxaan dhihi lahaa wiilasha waxaan u diri lahaa hadda kulligan ma ima maqlaysin intay fiirsanaysaa hadduu wiil fiirsanayo waxaan dhihi lahaa naagtii qolka kale kaa seexatay ee sariirtaada diidda inay soo seexato naag kale intaad soo guursatid sariirta iyada seexan weysay ku seexi ilaa iyadaa diidday ilaa iyadaa sariirta loo soo gaday diidday inay ku jiifatee maadaama ay qolka la seexatay intan lasoo guursada banaanka ha dejinin ilaa sariirta ma la khasaarina ilaa adaa soo gada qarash ku bixi mogtahay mid kale kusoo seexi exactly habeen oo xanuunsantaa oo rabtay inaad odaga ka kicisid oo odaga buuqii iyo ka dheerisa daartid ha laakiin fiina abadan qol kale iska soo seexana abadan marka qol kale seexanaysa qol kale lagu qabaaday kana lagu qabaa naagtii qolka kale banaanka seexata waxaan ku talin lahaa sariirta ay ka kacday in naag kale la keeno sariirtaas lagu qabo lagula dhaqmo taasaan rabaa aan u soo jeedinaya ragga dumarkan waxaan leeyahay haddaa wax ka faa'iideen waxaan leeyahay nimankiina haysta dulmiga joojiya naag in la guursado ma rabtino dee ninkaaga caasho u noqo xaliimo hoosta uga jirto noqo mar caashadii u dhadhalaysa noqo mar faadamo u noqo marba qof u noqo markaas kabacdi waxaa dhahdaa now naa kale now maxaa ku falaya naa kale hoos haddii lagaaga jirayo anaa ku ah haddii aa u baahan tahay gabar yaroo dhagdhag isnuurisidoo dhexda yar tahay haddaa alisad anigaa ku ah dheh ilmo anigaa kuu dhadhalaya anigaa saaxiib ku ah dee meel kasta haddaa ka kaafaysa afar dhaama ma aheed maaqaane noqo saa mid kale lagaaga raacin war intaasaan ooga baxay fideogana laagta sheerta ha ka hilmaamina iyo subscribe kulli waa salaamantihiin intaan video lamida dib ugu kulmi doona waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu